dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay waana faraxsanahay lama soo koobi karo dareenkayga bandhigkan ka weyn oo horta halka lagu qaban karaya dhacaya maba jiro igraac arhaale waxaan ku leenahay abtiyo waan ku jecelnahay abtiyo anaa maanta diyaar ku ahaa daawashadaada hooyaa joogtay walaalahay baa joogay laakiin showgu muxuu sii socon waayey wuxuu sii socon waayey ummaddii baa kala badatay iyo dadkii ha kala bataane galabta garoonka Hargeysa Stadium ee magaalada Hargeysa waxa ka qabsoomay bandhig faneed ay soo qabanqaabisay fanaanada caanka ah ee Ikraan Carraale balse guud ahaanba markii ay ka soo xaadireen dadweyne aad u tiro badan oo soo buux dhaafiyay garoonka Hargeysa Stadium ayaa guud ahaanba u istaagay bandhig faneedkaasi oo aan haba yaraatee wax hees ah aan laga qaadin iyadoo lagu xusayo xuska 18 May dadweynaha goobta yimina ay siteen astaanta calanka ee Somaliland garoonkuna intiisa badan uu buuxay xogeeye Yuusuf Nuux Yuusuf Tadhaasi xogeeyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga wadani oo isagu ka mid ahaa dadkii ama madaxdii ka soo qayb galay bandhigan ayaa halkan ila jooga oo goobjoog u ahaa sidee wax u dhaceen bal ugu horreyn soo dhaw xogeeye sidee wax u dhaceen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta maalin weyn bay ahayd waxa la xusayay 18 May inkastoo bisha 12 ahayd ay ku dhawaaqday fanaanada Ikraan Carraale waxa ka soo qayb galay kumanaan kun dad oo u diyaar ahaa inay daawadaan ama ay la dabaaldegaan intaan abtiga u nahay Ikraan Carraale dadweynaha degan 13 May iyo Axmed Dhagax qof kama harin jacayl loo qabo Ikraan Carraale oo ku dhalatay kuna kortay xaafadda Axmed Dhagax runtii waxay yeelan waayay dadkii meesha joogay iyo controlkii heestii koowaad iyo tii labaad markay bilaabantay oo fakaroor fatahaad aawadeed ayaa dadkii la xakameyn kari waayay laamaha ammaanka ee booliska oo aad u shaqaynayay iyo militarigiiba garoonka way joogeen laakiin waxaad moodaa in maantoo kale in loo daayo garoonka inay maamulaan boolisku ay ahayd militari baa la keenay militariga iyo shacbiguna isma fahmaan sideedaba taasaa keentay in dadkii la xakameyn waayo garoonka wax ka dhacay ma jirto dhibaato ah xaafadda dadkii ku noolaa deegaanka Axmed Dhagax iyo 13 May si weyn bay ammaanka iyo security-ka iyo baabuurta dadka oo iyagu ismaamulayeen u ilaalinayeen waxaan aad uga xumahay in nidaam xumo uu maanta u istaagay showgii Ikraan Carraale oo runtii ay ku xusay 18 May sidii hore u ilaamisay showgan oo kale ma ku dhacayo oo Ikraan Carraale ay imanayso oo dadkuna ay yihiin dad jecel waxay ahayd in nidaamka aad looga fiirsado wuxuun baan ku cadeynayaa in sidii ay u socotay iyo dadkii meesha yimi nidaamkeeda la maamuli kari waayay laakiin wax dhibaato ka dhacay xogeeye markaan eegno yaa mas'uuliyadda qaadaya bandhigii wuu istaagay yididiiladii ay inantu lahayd ahayd in garoonkeedii ay ka heesayso dadweynaheedii ay u heesayso tin iyo cidhibna ay calanka Somaliland ku soo labisatay baa ka baaqday iyadoo heeso kala duwan oo calanka Somaliland 18 May ay halka ka qaadaysay fanaaniin kala duwanna ay ka soo xaadireen goobta yaa mas'uuliyadda bandhiga inta laga muddada ay qabanqaabinaysay yaa qaadaya yaa dalka ka mas'uula yaa dadka ka mas'uula yaa nabadgelyada ka mas'uula yaa ogolaaday in intaasoo kumanaan kun qof oo aad moodo maanta in la daawanayo ciyaarihii gobolada inay hawd ciyaaraso iyo daan badheer baa la moodayay garoonka siduu buuxay yaa ka mas'uula dalkan iyo dadka nabadgelyadiisa laamaha booliska ayaa ka mas'uula militariguna uu joogay meesha in la wadi kari waayo haddii la xakameyn kari waayo shacbi weynaha iskugu yimi Hargeysa Stadium yaa Somaliland baa la xakameyn karaya arrintaa aad baan uga xunnahay halka ka dhacday Ikraan Carraale waxaan ku leenahay abtiyo waan ku jecelnahay abtiyo anaa maanta diyaar ku ahaa daawashadaada hooyaa joogtay walaalahay baa joogay xaafad walba cid ku hadhay ma jirto jacayl ay ku qabaan dadka deegaanka degan ee 13 May iyo Axmed Dhagax waxa ila joogay dadka yimi gobolka Hawd si ay u daawadaan ciyaaraha dadka si ay u daawadaan showga Ikraan Carraale dad baa burcawga yimi waayo Ikraan abti baan u nahay waan dhalnay waynugu dhaqantay jacayl loo qabo ayaa ciyaarihii garoonka la daawan jiray dad ka badani ay yimaadeen xogeeye ma waxaad leedahay dadka xaafadan garoonka Hargeysa Stadium ku dhex yaala mas'uul kama aha bandhiga baaqday baad leedahay kama mas'uul aha
shacbiga degan koobiisa dokumeeya Axmed Dhagax iyo dhalinyarta xaafadda degan iyo haweenka iyo waalidku kama mas'uulaha iyagu waxaabay jeclaayeenba in showgu uu dhaco way soo labisteen calamaan bay soo siteen waa la kharash gareeyey dadkii baabuurtii baa la soo kharash gareeyey in maanta xukuumadda ay xakamayn kari weydo dadweynaha halkaa ku yimi ceeb weyn bay ku tahay iyo foolxumo wuxuun baan laakiin sheegaynaa in deegaankayga aan ka soo jeedo ee uu ku yaallo garoonka kubadda cagta ugu weyn somalilan ee hargeysa stadium dadka degani ee reer Axmed Dhagax iyo koobiisa dokumeey aanay halkaa wax dhibaatay aanay ka dhicin aan buuq ka dhicin aan dhaawac iman aanay dhibaato iman laakiin showgu muxuu sii socon waayey wuxuu sii socon waayey ummadii baa kala badatay iyo dadkii ha kala bataane dadka yaa xakameeya nabadgelyada yaa gacanta ku haya booliska gacanta ku haya militariguna uu joogay militariga iyo booliskii garoonka joogay ma waxay xakameyn kari waayeen garoonka Hargeysa stadium seeba loo xakameyn karaa Soomaaliland marka way haddaba Ikraan Caraale waxa soo wajahay niyad jab weyn oo xoogan oo ah bandhig weyn oo muddo ay soo qabanqaabinaysay maxaad leedahay xukuumadda talada dalka haysa samirsiis ha uga dhigtayna taasoo bandhig ka weyn loo qabto maxaad adigu talahaan soo jeedinaysaa bandhig ka weyn oo horta halka lagu qaban karaya dhacaya maba jiro halkii ay ku dhalatay bandhiga ka dhacay ayaa wax walba ka qaalisan dawladdu ma samirsiin karto mana niyadeedan lama soo celin karo annaga dhalnay oo u abtiya annaga soo celinna Ikraan waxa la yaabtay adiga iyo fanaaniintii kula socotay iyo asxaabtaadii kula socotay dhiijiyadii kula socday inamadii qalabka iyo sameecadaha rakibayay ee dadaalka badan ku galiyay aad iyo aad baan uga xunnay waxa halkaa maanta ka dhacay ma aha baan leenahay waxay idinku sameeyeen dad deegaanka ama dhalinyarta ama foodo samaysay maaha xukuumadda ka mas'uula xukuumadda xakameyn kari wada Hargeysa stadium iyo xakameynaysa booliska ayaa ka mas'uula nabadgelyada dalka booliska ahay in garoonka loo daayo military baa joogay militariga iyo shacbiguna isma fahmaan haddii booliska loo deyn lahaa boolisku intan ka badan baa uu xakameeyaa military aan shacabkii fahmayn oo kala garanayn kii xildhibaanka ahaa oo aan kala garanayn kii xilka hayay ayaa meesha loo dhiibay taasaana dhibaatada keentay wuxuun baan laakiin halka ka caddaynaya we love you Ikraan abtiyo anigoo ah mas'uul ka tirsan xisbiga wadani oo dhalinyarta iyo ciyaaraha ninkii ugu sareeyay ayaa abti salaadii casar ku dhex tukaday Hargeysa stadium si aan ku daawado Ikraan Caraale taariikhdeeda haddaan in yar kaaga warramo Ikraan Caraale taageerayaashii kubadda cagta ee kooxaha iyagii Sooyaal iyo Diyaana Kilaab inkastay aad u yarid lagu jeclaabay maadaama ay daawan jirtay markaan ciyaarin taageeri jirtay ayaan aniguna waxaan u soo huray iyo bilaayin qof oo kale garoonka joogay inay daawadaan showga Ikraan Caraale abti waxaan ku leenahay kun jeer abti madaxaad noo saarat haddii lagu celinayo haddii 20 kun oo goor lagu celinayo iyo haddii wax walba la sugayo annagu mar walba garabkaaga